وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المشكلة الثالثة مشكلة الغنى والفقر. waxaan ku soo jirnay mashaakil alxayaa iyo sida sharciga islaamku uu xalliyay. halkan waxaan ka gelaynaa mushkiladda ku saabsan qaninimada iyo faqriga ama hodantinimada iyo baahida. waxaa kaloo la xiriira isla mushkiladdan oo ciwaankan gudihiisa sheekhu uga sheekay doonaa asixatu walmarad, caafimaadka iyo xanuunka wixii la xiriira, iyo guud ahaan annicamu walmasaa'ib, nicmooyinka iyo masaa'ibta. intaa la sheegay oo dhan waa waxyaalo qofka la soo gudboonaanaya nolosha adduunyo. qof walba iyo qolo walbana ay isku daydo inay xal u raadiso. waad garanaysaan adduunka saboolnimada iyo baahida iyo faqriga ha lala dagaalamo, inta u taagan ama sheeganaysa, inta mashruuc ee loo furay, inta hay-adood, inta baarid ee loo sameeyey way fara badan yihiin. sidoo kale caafimaadka wixii la xiriira iyo cudur in laga hortago, awoodda lagu bixiyo adduunka oo dhan waa la garanayaa, iyo guud ahaan masaa'ibta dhibaatooyinka timaada sidii looga hortagi lahaa ama loo xallin lahaa haddii ay dhacdo. halkan marka sheekhu wuxuu tilmaami doonaa sida kitaabka aan meelo badan ku soo marnay siyaalaha dadku ay u xalliyaan arrimaha iyo sida diinka islaamku uu xalliyey, iyo in sheekhu uu muujiyo xalka diinka islaamku inuu yahay midka saxda ah ee sidii loo baahnaa u xalliyey mushkiladda. tanawwacat maqaasidu alkhalqi wa siyaasaatuhum, noocyo badan ayay noqotay ujeeddooyinka dadka iyo siyaasadahooda ku aadan fii mas'alati alghinaa waalfaqri, masalada hodantinimada iyo baahida ama faqriga iyo qaninimada, bixasabi aghraadihim annafsiya, hadba ujeedooyinkooda nafsadeed ama shakhsiyadeed sida ay tahay ayay ugu kala duwanaadeen. laa bixasabi itibaacihim lilxaqi wa nadarihim lilmasaalixi alcaammati alkulliya, ma ahan kala duwanaanshahaasi mid ku yimid raacidda xaqa iyo sida saxda inay raacayaan iyo inay fiirinayaan masaalixda caamka ee kulliga ah ee ka wada dhexaysa dadka oo dhan, ee qolo walba iyada sida u fiican ayay fiirisay. wa kulluhum akhta'u طariiqa naafic, kulligoodna way gafeen waddadii waxtarka lahayd, xayثu lam yataqayaduu bihidaayaati اdiin اlislaami, meeshii aanay ku xirmin hanuunada diinka islaamka, hanuunadii diinka islaamka marka aanay ku xirmin waddadii saxda ahayd ee waxtarka lahayd way gafeen. watanawacat bihim alafkaar, fikiraduna way la noocyo bateen oo fakero iyo talooyin kala cayn ah ayay la yimaadeen. wa camiluu calaa muqtadaa daalika, arrinkaa sida uu keensanayo ayayna ku dhaqmeen fikiradooda kala duwan. faxasala bidalika sharu mustatiir, sidaa marka waxaa ku dhacay shar mustatiir ah oo daba dheer oo dhib badan. wa waqacat fitanun kubraa, fitnooyin waaweyn ayaa dhacay bayna man yaddaci nusrata alfaqri waalfuqaraa'i, cidda sheeganaysa u gargaaridda ama u hiilinta faqriga iyo dadka fuqarada ah, waalcumaali iyo shaqaalaha.
وبين من يتمسك يعد قبصانيسي كدغيسا التمسك المزري قبص الشضا إهانة له يفعل حمض له بالثروات هانتيها والأموال يحوله شيخ سيدي عن صوت المعنى وحو لا عاصري باللوغي أما حلقي أي حوغي سنيسي شوعية يرأس مالية لبضا قولي أوت المعنى فتنوين كواوين يكبح لحينا وإياك قولنا شيغان أي سادات كباهن يعماش يشقالها يضن يرتعين نصرين أيان وقولنا الشوعية هاي ما هانتي وداك اشتراكية مذهب قدوة قولنا إيضو هانتي إلا تعبو إيا لقالة حوق سارتي معنى كلا أنفيرين ورأس مالية وهذا إيضو أدونك وحوق بضان أدونك ودن سامين كيالتي مذاهب تودي عقائد هبك لدواناتي ولهم ضدك وحيليهين في ذلك أرنكا كساب سنقالها يسيد الله معموليه إيا فقرك إيا غني نمدا كلام طويل هذا اللير بكليهين كله خطأ وضلال كل جسم قف يبادئه وهدى الله المؤمنين الله مؤمنين توها نونيي إلى صراط مستقيم وضطه صنبوكها نونيي في جميع أمورهم عامة الرمود النمان تود وفي هذه المسألة خاصة هي مسألة خاص أهم ومركا مؤمنين تا أيا وفقصا وهي علمي دقالها صحدا أها انت فقرك كسي فيسان انت غني لماذا كسي فيسان با لدوني إن يكون رقمان جاء الشرع ولله الحمد بصلاح الأغنياء والفقراء شرع الإسلام كوحو ليمد الله نمهد له بصلاح الأغنياء والفقراء ضدك هنتظى له يكوى فقراء وناقود أي ليمد أرين لبضب وناقوه أي شرع ليمد بحسب الإمكان صورة قل مقدر كيد انتي صورة قل لبدو دبا إن نلوشودا يحالب دودا يحريرك كان بحيا الهجاجيو لما حكم الله تعالى أرنتي مركا شرعه لي مد أيو فافاهنتي دكو قليا لما حكم الله تعالى الله مركا أو حكميي قضاء وقدرا قضاء أهان يقدر أهان أن الخلق درجات خلق أو أبوري درجوين إنيهين تدخل اسكول لابا لإني سنعهين اللابا لك لدوان إيهين لنعيب بدن مرك الله في ريو وفمنهم الغني ومنهم الفقير وحاكم إذا مد حولها يستعي مد فقير ومنهم الشريف ومنهم الحقير وحاكم إذا مد شرف له يمد حقيرا مد ددكو أي شرفان وأي ماموسان ومضح إنه يهي أما شرف إنه ليه أي أركان هي مثل حقره لحكم عظيمة حكمي واوين أي خلق صدا وقردقي وأسرار يضيق التعبير عن وصفها هي أسرار أي عرير النقون يصوه تلمان تيدا إن لعبر الله الشيخه فربط بعضهم ببعض وحاكم إذا مرك حكمي كاس كتير تضدك إن درجوين يلا بلك لدوان لقردقي فربط بعضهم ببعض قاركود بقارك كلكو حري بالروابط الوثيقة حريرو أذق بوسكول حري وسخر بعضهم لبعض قاركود يقارك كلا أسخري وتبادلت بينهم المصالح العادلة وحادح ذو يسبد شيء ويسلاف صدين مصالح عادلة وعدالة كل سن واحتاج بعضهم إلى بعض قاركود بقارك كلا وبعض marka tafaadulka ama tafaawudkaas wuxuu keenay takaamul wax la yiraahdo dadku inay is dhameystirayaan dadku haddii hal dabaqa ay ahaan lahaayeen ma aysan is dhamaystir lahayn laakiin inay kala duwan yihiin mid uu qani yahay midna uu faqiir yahay mid meel dhexe uu yahay way is dhamaystiraysaa sidoo kale xiriirkii dhexdooda ahaa ee la doonayay qofkani inuu xiriiriyo maalan qofka qaraabada ah qofka miskiinka ah qofka sharcigu xaq u yeelay
waxa uu ku xariirinayaan maalan hanti ay tahay haddii isku mid ay ahaan lahaayeen oo kulligood aqniye ay wada ahaan lahaayeen ama kulligood fuqara aan waxba haysan ay wada ahaan lahaayeen ma aysan imaan lahayn tafaadulka marka xikmooyin fara badan baa ku jira oo ay ugu horeyso sida sheekhu uu ku yiri dadka xiriirkoodu inuu saxnaado inay isdhamaystiraan in qofka isaga wixii ka maqnaa cid kale ay u samayso oo dadka qaar baa hanti haysta laakiin xoog iyo aqoon iyo xirfad baa ka maqan qaarna aqoon bay leeyihiin waxaa ka maqan hantidii qaar xirfad bay leeyihiin sidoo kale hantidii baa ka maqan way isdhamaystirayaan marka masaalixda ay marka isdhaafsanayaan midba waxa uu u baahan yahay ayuu ka kale ka helaya marka inay isu baahnaadaan oo baahidooda ay buuxiyaan iyo guud ahaan ayaa ka mid ah xikmadda kala duwanaashahooda sidaana allah baa u qaybiyey sharca shaaricu lxakiim marka qadaa ahaan markii sidaa allah qadar ahaanba sidaas markii allah uu xukmiyey sharaca shaaricu lxakiimu ayuu sharciyeeyey allihii xikmadda badnaa awalan marka horeba an yakuunuu inay noqdaan ikhwaanan walaalo iyagoo sidaa u kala duwan oo leebalo iyo tabaqaad kala duwan ah haddana inay walaalo noqdaan wa an laa yastaqila bacduhum bacdan qaarkood qaarka kale inuusan ka faa'iidaysan istiqlaalan shaksiyan ka faa'iidaysi daneed ama shaksiyadeed inuusan midka kale ka faa'iidaysan bal arshada kulla minhum mid walba oo ka mida dadka wuxuu ku toosiyey ku hanuuniyey an yaquuma naxwa alaakhari midka kale dhinaciisa inuu u istaago biwaajibaatihi sharciya waajibaadkiisa sharciga ah allatii yatimu bihaa taasoo ay ku dhammaystirmayso alilticaamu isu imaasho wa taquumu biha alxayaa noloshuna ay ku istaagayso ay ku dhammaystirmayso haddii dadku ay kala duwan yihiin oo darajaad kala sarreeye ay yihiin looguma talagelin inay isku xaqiraan in sida sheekhu uu sheegi doono si qaldan awoodaha la siiyey ee loo kala badiyay ay u isticmaalaan ee waxaa loogu talagalay inay walaalo noqdaan inay isdhammaystiraan in midkood midka kale uusan istiqlaal iyo ka faa'iidaysi iyo xaasidid iyo nasiixa darro uusan kula dhaqmin midka hantida haystana inuu u nasiixeeyo midka shaqaynaya caamilka ah kan xoogga iyo xirfadda iyo aqoonta haystana inuu u nasiixeeyo midka hantida leh ee shaqada ka dalbanaya marka mid walba ay kan kale waajibaadkiisii sharcigu uu sugay inuu u istaago taas ayaa marka keeni karta noloshii inay isdhammaystirto oo noloshu si saxan ay u istaagto amara aljamiica dadkii oo dhan wuxuu amray allah an yatawajahuu biajmacihim gebi ahaantood inay u jihaystaan ila almasaalixi alcaammati alkulliya masaalixda caamka ah danaha guud ee kulliga ah allatii tanfacu طarafayn taasoo labada darafba anfacaysa labada dhinac ee kala sarraysaba anfacaysa kalcibaadaati albadaniya cibaadooyinka badanka laga sameeyo waalmashaariici alkhayriya mashaariicda iyo howlaha khayrka ku saabsan wa jihaadi alacdaa'i wa muqaawamatihim cadowyada in lala jihaado laga hortago wa dafci cudwaanihim bikulli wasiila iyo gardaradooda in la celiyo waddo walba iyo dariiqo walba lagu celiyo kullu minhum mid walba oo dadka ka mid ah intaas wuxuu samaynayaa bixasabi wuscihi wa qudratihi awooddiisa iyo taagtiisu inta ay la eg tahay haadaa bibadanihi wa maalihi kan awooddiisa iyo xoolihiisa ayuu ku samaynayaa xooggiisa iyo xoolihiisa wa haadaa bibadanihi midkaana xooggiisa oo xoolama hayo wa haadaa bimaalihi kana xoolihiisii oo xooggii buusan haynin kulligood marka waxay ka wada qayb qaadanayaan danihii guud iyo masaalixdii caamka ahayd oo dadka oo dhan wada anfacaysa wa haadaa bijaahihi wa tawjiihihi midkaanina sumcadiisa iyo sharafta uu leeyahay iyo hagidda aqoonta uu leeyahay ayuu uga qayb qaadanaya wa haadaa bitacallumihi wa tacliimihi kana cilmi barasho iyo cilmigii dadka inuu baro ayuu uga qayb qaadanayaa lianna algaayata waaxida maxaa yeelay yoolku waa mid ujeedka la leeyahay ee la rabo in la gaaro waa hal mid walmasaalixa mushtaraka masaalixduna waa mid la wada leeyahay danaha waa kuwo la wadaago waalgaayata shariifa gaayaduna waa mid sharaf leh waalwasaa'ila ilayha shariifa sidoo kale wasaaisha lagu gaaraya gaayadana waa mid sharaf leh gaayadana sida aan soo marnay
والله سبحانه وتعالى إن لبرته لنا عابده لون استاغو حقي لها مالك قيامها نقفك بدبادديسي إنه كشقيو iyo raali ahaanshaha Alle iyo raxmadiisa inuu gaaro intaas qaayada ah marka dadka oo dhan waa mid ka wada dhaxaysa ee la doonayo in la wada gaaro qof walba marka awood inta uu leeyahay ay uga qayb qaadanayo marka kala duwanaanshahaas marka koowaad noloshu inay ku dhammaystiranto marka labaadna in hadafka weyn ee la wada leeyahay xaqiijintiisii looga wada qayb qaato ayaa loogu talagalay ثم أوجب في أموال الأغنياء كذب الله وحك واجبي حولها ضدك هنتدى هايسته غنية فرضا سفرض واجبي الزكاة زكاة بحسب ما جاء في تفاصيلها الشرعية عبد سيدي كتمد ففاهينه هذا شرعي أحاديث أي عضيسي وجعل مصرفها ما شاء الله قد بحين ينوحو كردقي دفع حاجات المحتاجين ضدك باهن باهيهود إلا إليه ولا ضبوله وحصول المصالح الدينية هي إن لهله أو أي تماده مصالح ذا يدنها الدينين المقيمة لأمور الدنيا والدين إيادو تاجينيسة وحوجينيسة الرمها الدنيا الرمها الدين كاللبضبة وحث الله عقوبه ضدك على الإحسان إحسان إني سميان يعني أنت واجب كأهيد فرض كأهيد كبضا إني بحيان في كل وقت حل والباء وفي كل مناسبة مناسبة والباء وأوجب الله واجبيي دفع ضرورة المضرين إلا عليو ما شاء الله صاره ضرورة ضدك أي هيسو باهدة درن قفك باهي لمنايا أما أون لمنايا إن ما شاء الله صاره باهديسا وإطعام الجائعين هو قاجون إن لقوضيه وكسوة العارين هو أن در هيسن إن لمرشيه ودر لصيه ودفع الضرورات عن المضرين يقول هان ضدك ضروريسن دباتة كسي فيسن أما دبك كتيرة إن دباتوين كان لغا قاضو سيدا سيو الله واجبيي مركز زكادينا واجب وحي ضرورات ضدك إن لغا قاضنا واجب إحسانكنا مر والبا وشيء لدوني وشرعي ضدك وكبوري تامرك وحي كينيسا ضدك هانتيدا هايستي مرنا هانتيدي إني بحيان واجب بيكوتهاي oo hadii aanay bixin wayba ku dambaabayaan aakhira ayaana lagu la xisaabtamaya marna waa sida wanaagsan oo adduunkana u wanaagsan aakhirna darajaad sare ay ku gaarayaan taa waxay keenaysaa marka xiriirka ay leeyihiin dadka hantida haysta iyo kuwa hantida aan la siin inuu wanaagsanaado inay isdhamaystiraan kii hantida lahaana ajar iyo khayr iyo wanaag uu kasbado kii baahnaana marka dhibaatadii laga qaaday iyo faa'iidada inuu helo وكذلك أوجب سداس وكلا واجبي الله النفقات الخاصة للأهل والأولاد بيل ينفقوين قارة واللصين يريرك يعرورت أي واجبي وما يتصل بهم يوحي الحريرة ضدك وقف والبوحة واجب كوة إنه بيلو حاس كيسا من والبوين حاسك وقبو وبيلو الماء يسمى ودري وإنه بيلو sidoo kale qof walba rag iyo dumar wuxuu yaaba hadduu hanti haysto inuu biilo waalidkiisa u baahan nolosha in laga kaabo waxa uu haystaa aanay ku filnayn taa marka iyaduna waa maal in la bixiyo sharcigu u waajibiyey wuxuu kaloo waajibiyey walqiyaama biwaajibaati almucaamalaati kulliha in loo istaago waajibaadka mucaamalaadka oo dhan alwaaqicati bayna annaas mucaamalaadkaasoo dadka dhex dhaca mucaamalaadka dadka dhex dhaca ee xuquuqda ay isugu yeeshaan ama hantida ay isugu yeeshaan waajibaadkeeda in loo istaago yaa ayuha aladiina aamanuu awfuu bilcuquud sida allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi dadka mu'miniinta ahow heshiisyada oofiya waxaad ku ballantaan ka soo baxa wa amarahum allah wuxuu amray maca daalika intaa la jirkeeda allaa yatakiluu fii kasbi dunyaa inaanay tala saaran adduunyada ka shaqaysigeeda iyo kasabkeeda calaa xawlihim wa quwatihim xeeladooda iyo awooddooda inaysan tala saaran oo aysan wax ku dhisin walaa yanduruu nadara istiqraarin wa tuma'niinatin ilaa maa cindahum
inaysan fiiro sugnaasho iyo ku xasilin waxa ay haystaan. qof walba inta uu haysto inuusan islihin waa wax kuu sugnaanaya, qalbigiisu waa inuusan ku xasilin, bal yakuunu nadaruhum cala addawaami, bal fiiradoodu si daa'ima baa waxay noqonaysaa ila allaahi wa ilaa fadlihi, inay fiiriyaan allah iyo fadliga uu u geystay, fadliga uu siiyey, wa taysiirihi fududaynta uu u fududeeyey, walisticaanati bihi alle inay kaalmaystaan ayay fiirinayaan. wa an yashkuruuhu allah inay u mahad celiyaan calaa maa tafadala bihi calayhim, waxa uu ku tafadulay fadli ahaan uu u siiyey, wamayazahum bihi uu ku soocay dadka kale uu uga duway min alghinaa ee hodantinimo iyo watharwati hanti ah. wa awjaba calayhim sidoo kale allah wuxuu ku waajibiyey dadka an yaqifuu cinda alxuduud, inay istaagaan xuduudda agteeda, xuduudda sharcigu uu xadeeyey, falaa yanqamisuu inaysan gudagelin fi tarafi waalisraaf, tanacum iyo barwaaqaysi iyo xadgudub, inqimaasan dhexgelid yaduru biakhlaaqihim wa amwaalihim wa jamiici axwaalihim, dhib u keenaya akhlaaqdooda iyo xoolahooda iyo dhammaan xaaladahooda oo dhanba. bal yakuunuu inay noqdaan ayuu amray kama qaala allahu tacaala, sida allah uu yidhi, waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama. cibaaduraxmaan dadkii ahay wanaagsanaa waa kuwa haddii ay wax bixinayaan aan xadgudub samaynayn, ciriirina aan samaynayn, ee waxbixintoodu intaa dhexdeeda ay noqonayso mid wasat ah oo dhexdhexaad ah. sidaas ayuu allah ugu sifeeyey, tilmaamahaas ayay marka leeyihiin. sheekhu markaa wuxuu soo tilmaamay mabaadi' fara badan oo sharciga islaamku uu qariray oo keeni karta si habsami ah oo wanaagsan dadku hantida inay u isticmaalaan, midka hayaa inuu si wanaagsan u isticmaalo, midka hantida aan hayna si wanaagsan inuu u noolaado keeni karta. mabaadi'dana way fara badan tahay, qaar ka mida ayuu sheekhu tilmaamay. waxaa ka mida mabaadi'da oo kuwii ugu dambeeyey sheekhu uu sheegay ka mid ahaa mabda'a la yidhaahdo altafadul, in waxa qofku uu haysto ee maal ah ama caafimaad ah ama nicmo ah uu yahay fadli allah subxaanahu wa tacaala qofka uu siiyey, ee uusan ahayn wax isagu uu hal abuuray iyo wax isagu awooddiisa iyo xeeladiisa iyo aqoontiisa iyo kartidiisa uu ku helay, ee uu yahay fadli allah subxaanahu wa tacaala. allah wuxuu leeyahy wamaa bikum min nicmatin fa min allah, wax allaaliin waxa idinku sugan ee aada haysataan ee nicmo ah nuucay doonto ha noqotee allah xaggii bay ka timaaday. nicmo walba aad haysato allah ayaa ku siiyey. walidaalika waxaa ka mid a adkaarta subaxdii iyo galabtiiba la aqriyo qofku inuu yidhaahdo allahuma maa asbaxa bii min nicmatin aw biaxadin min khalqik faminka waxdaka laa shariika lak falaka alxamdu walaka ashukru. ilaahu waxaa aniga igu waabariistay ama axad khalqigaaga ka mida ku waabariistay ee nicmo ah, adiga xaggaaga ayaa laga helay, adiga ayaa marka mahad iyo shukri ku leh. wamaa bikum min nicmatin fa min allah fabtaguu cinda allahi risqa wacbuduuhu washkuruu lahu. allah xaggii u raadiya risqiga, isaga caabuda, isagana u mahad celiya. taa marka waxay tusinaysaa qofku marka koowaadba in naftiisa uu ku qanciyo arrintan iyo khayrkan iyo maalkan uu haystaa inuu yahay nicmo allah uu siiyo. taa waxay keeni kartaa marka inuusan kibrin, inuusan isla weynaan, sheekhuna wuu tilmaami doonaa, ayay keenaysaa. marba hadduu aaminsan yahay allah inuu siiyey, haddii laga rabo allah inuu uga shukriyo, haddii laga rabo allah inuu ku caabudo, arrinkaa wuxuu keensanayaa inuu addoon yahay oo qof miskiina u yahay oo baahidu ay ku abuuran tahay asal ahaanba, inuu dareemo kibirna marka uu ka badbaado. waxaa ka mid ah mabaadi'da qofka muslimka uu aaminsan yahay ama diinka islaamku uu qariray ee keenaysa qofka qalbigiisu inuu xasilo, adduunkana si wanaagsan uu hantida u maamusho, inuu aamino mabda'a la yidhaahdo alibtilaa, imtixaan inuu yahay maalku. hantida qofka la siiyaa inay tahay
imtixaan lagu imtixaanayo oo lagu jarribayo iyo sidoo kale haddii hantida laga qaado ee faqri lagu imtixaanana iyaduna sidoo kale inay imtixaan tahay فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن وحكمتها فهم درada iyo maangaabnimada qofka ibn aadamka ah haddii Allah subxaanahu wa ta'ala uu imtixaano uu ibtileeyo karaamo iyo nicmo la siiyo wuxuu leeyahay rabbigay wuu isharfay ayuu leeyahay haddii sidoo kale la imtixaano nolosha iyo risqiga lagu ciriiriyana wuxuu leeyahay rabbigay waa i ahaanaystay nolol liidata ayaan ku noolahay maxaa aniga sidaa la ii yeelay ayuu isleeyahay labaduna waa imtixaan idaa ma btalaahu rabbuhu iyo labaduna mid walba uu imtixaanaya kana waxaa lagu imtixaanay hantida uu haysto kana waxaa lagu imtixaanay hantidii inaan loo dhiibin markii hore kana sida uu uga shukriyo oo uu maamulo ayaa la fiirinaya kana sida uu u sabro oo qanaaco uu qaato ayaa la fiirinaya sida Allah uu leeyahay wanabluukum bisharri wal khayri fitna waan idinku imtixaanaynaa shar iyo khayrba fitna iyagoo ah imtixaan sidoo kale Allah wuxuu leeyahay inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala dhammaan waxa dhulka saaran ee dhaldhalaan iyo qurux ah Allah wuxuu tilmaamay in loo sameeyay dadka in lagu imtixaano sida ay u kala amal wanaagsan yihiin oo shaqada aakhiro ay ugu kala fiican yihiin marka qofku inuu dareemo hantida la siiyay imtixaan inay tahay haddii laga qaadana imtixaan laga qaaday waxay keenaysaa adduunka nolosha uu ku noolaanayo inay mid wanaagsan noqoto mowqifka uu ka qaadanayo hantida raadinteeda iyo sida uu u fiirinayo iyo qiimaha iyo mansilada ay la leedahay ay saxaysaa waxaa ka mid ah mabda'a ah qofka mu'minka inuu aaminsan yahay aakhiro inay ka wanaagsan tahay adduunyada anna al-aakhirata khayrun min ad-dunya wala al-aakhiratu khayrun laka min al-ula sida Allah yiri aakhiro ayaa kaaga fiican noloshan adduunyo bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal aakhiratu khayrun wa abqa nolosha adduunyo ayaa dooranaysaa oo aad jeceshihiin laakiin nolosha aakhiro ayaa ka fiican oo ka baaqi ahaansho badan way ka fiican tahay xagga dhammaystirnaanshaha iyo kamaalka marka la fiiriyo wayna ka baaqi ahaansho badan tahay nolosha adduunyo labadaa midna ma laha oo kamaalkeedu ma dhammaystirno nuqsaan ka marnaamayso daa'imna ma noqonayso qofkii ama isagaa ka tegaya ama iyadaa ka tegaysa Allah wuxuu leeyahay sidoo kale waraxmatu rabbika khayrun mima yajmacuun rabbiga naxariistiisa raxmadiisa oo jannada ah ayaa ka fiican dadku waxa ay aruurinayaan ee adduunyada walaa tamuddanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati addunya linaftinahum fiih warisqu rabbika khayrun wa abqaa aayadaa labadii mabda'ba Allah uu ku kulmiyey qofku inuusan u hanqal taagin dhaldhalaalka iyo quruxda adduunyo dadka lagu imtixaanay linaftinahum fiihi imtixaan iyo fitna inay tahay ayuu Allah tilmaamay warisqu rabbika khayrun wa abqaa rabbiga risqigiisa oo jannada iyo aakhiro wanaagga la helayo ayaa ka khayr badan kana baaqi ahaansho badan ayuu Allah leeyahay subxaanahu wa ta'ala sidoo kale waxaa ka mid ah mabaadi'da saxaysa qofka maalka sida uu ka aaminayo ama uu u maamulayo qofku inuu aamino al-iimaanu bilqadari wa bisharci qadarka iyo sharciga inuu aaminsan yahay qadarka inuu aaminsan yahay wixii uu helo ilaahay baa u qadaray haddii hanti fara badan uu helo haddii hanti yar uu helo haddii waxba uusan helin haddii caafimaad uu helo iyo haddii xanuun uu helo intaba waa wax ilaahay u qadaray uu qoondeeyey wixii ilaahay uu qadarana way ku dhici doonaan oo kama badbaadi doono sharcigana inuu aaminsan yahayo haddii hanti la siiyo xukun Allah oo la doonayo inuu ilaaliyo inuu jiro waxyaalo ay xaraam ka tahay inuu iska ilaaliyo waxyaalo ay waajib tahay inuu la yimaado inay jiraan oo hantidan haddii loo dhiibo mas'uuliyad inuu noqonayo labadaaba qofku inuu aaminsan yahay labadaaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiis buu ku tilmaamay uu leeyahay
إن جبريل نفث في روحي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ملك الجبريل أي قلبي يغشاغي ووحي الله حقي وككيني نفسد لمن يسائني سنجرين إلى رزقك إذا أي كان ما يسترط عمري إذا أي كبوحسته قفك عمري إذا أنت وحكد مين مر من دونه رزقك الله قرأ أنت وحكد مين مر من دونه تامرك محي كينيسا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله عرديسا إسكا إلهي وإلهي كعبصدا رادينتا الدنيا رادين إنسان قرحية وصي قرحسن وحلال وشرف له والرادية وصي حمان وشرف دعا أخلاق حماء دين لآن أكون راديننا محايا المروة وإنت لو قري ما دافي دونتي عمري يقول إنت لو طلق ما دافي دونه adduunka ku waari maysid adduunka hantida taalo dhan yeelan maysid. marka qofku inuu aaminsan yahay qadarkii Allah subhanahu wa ta'ala iyo sharciga Allah subhanahu wa ta'ala waxay ka qayb qaadanaysaa in raadinta adduunyada uu raadinayo ay qurxoonaato iyo maamulida uu maamulaya in ay qurxoonaato. sidoo kale mabda'a qofku inuu aaminsan yahay al-hisaab wal-iqaab in lagu xisaabinayo hantida la siiyo maalinka qiyaamaha haddii sidii wanaagsanayd uu maamuli waayana lagu ciqaabi doono sida ay culimadu u yiraahdeen xalaaluha xisaabun wa xaraamuha ciqaab. adduunyada xalaasheeduna waa xisaab maalinka qiyaamaha qofkii xisaab dheer bay ku noqonaysaa sida xadiidta ku sugan dadka fuqarada ah ayaa jannada u sii hormaraya dadkii hantida badan lahaa say u kala hanti badnaayeen ay u kala xisaab badan yihiin. marka xalaasheeduna waa xisaab xaaraanteeduna waa ciqaab. waxaa ka mid ah mabaadi'da qofka saxaysa sida uu hantida u fiirinayo ama u maamulayo mabda'a la yidhaahdo alqanaaca. qanaaco qofka inuu leeyahay inuu ku qanco inta Allah uu siiyo. rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay qad aflaxa man aslama wa ruziqa kafaafan wa qanna'ahu Allah bima ataa. wuu guulaystay wuu liibaanay qofka islaamay ee nolosha in ku filan la siiyay ilaahayna uu ku qanacsiiyay inta uu haysto. yacni wanaag u dhiman ma jiro qofka inaad muslim tahay quutul yoomkii aad haysato intaasna ilaahay qanaaco kugu siiyey way kuu dhammaystiran tahay. rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam noloshiisu sidaa ayay ahayd sidaa ayuuna ku ducaystay. waxaana ka sugan inuu yidhi khayru risqi alkafaaf. risqi waxaa ugu fiican kafaaf qofka baahidiisa inta daboosho inuu helo oo wax ka badan oo imtixaan dheeri ahna uusan helin intaasna ciriiri aysan ka gelinoo nolosha uusan ku dhibaatoon. waxaa kaloo ka sugan rasuulka sallallahu calayhi wasallam inuu yidhi man asbaxa minkum aaminan fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. qofka idinka mid ah ee ehelkiisii ku waabaraysta isagoo caafimaad qaba quutul yoomkiina haysta wuxuu la mid yahay adduunyada oo dhan in la siiyey. adduunyada oo dhan in la siiyey. qofku adduunyada uu helo muxuu ku raadiyaa waa wax uu cuno inuu helo caafimaad inuu helo amni inuu helo reer iyo deganaansho inuu helo intaasuu ku helaa adduunyo u raadiyaa. intaas markaa qadarka ku filan qofka haddii ilaahay uu siiyo adduunyo fara badan wixii lagu raadi lahaa ayaa la siiyey. adduunyo uma dhimano marka ee waxa u dhimani waa intaas waqannacahu Allah bima ataa. intaas qanaaco ilaahay ugu geliyo oo uu ku qanco taa ayaana keeni karta qofku nolol wanaagsan adduunka inuu ku noolaado sida rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu yiri laysa al-ghina an kathrati al-arad walakin al-ghina ghina an-nafs. qaninimadu ma ahan hanti fara badan iyo badeecooyin fara badan inuu qofku leeyahay. qaninimadu waxay tahay ghina an-nafs qofka nafsadiisu inay qani tahay nafsadiisu inay qanaaco leedahay inta uu haysto inuu ku qanacsan taas ayaa qaninimo. waxaa kaloo ka sugan rasuulka sallallahu alayhi wasallam xadiid fara badan inuu qofka kula dardaarmay ku booriyey dadka hantida ay haystaan inuusan u hanqal taagin way'as mimma fi aydi nnaasi takun ghaniyan ama tacish ghaniyan ka quuso dadka gacantooda waxa ku jira adigoo qani ayaad noolaanaysa ayuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam.
marka mabaadi'da qofka noloshiisa saxaysa waxaa ka mid ah in qanaaco uu leeyahay. waxaa kaloo ka mid ah qofka hanti walba oo uu helo iyo hantidu agtiisa si walba oo qiimo iyo cizo ay u leedahay waxyaalo ka qiimo badan inay jiraan oo sharaf ah oo badbaado ah oo waxyaalo lagu dadaalo ah oo xataa dadka aan muslimiinta ahayn kuwooda caqliga leh ay aaminsan yihiin. maalan jaahiliyadii marka laga sheekaynayo oo kale dad waxaa jiray lagu yaqiinay sakhinimada, deeqsinimada oo xoolaha aad u bixi jiray. dadkaasi dad sharaf leh inay ahaayeen baa loo arki jiray, waana ficlan dad sharaf leh oo ficilka ay sameeyeen waa ficil sharaf tusinaya. dadkaasi markaa hantida waxay u bixinayeen in ay jirto qiimo iyo arrin ka sharaf badan hantida. dadka muslimiintana sidaa oo kale qofka muslimka ah hantida inuu haysto waxaa ka qiimo badan inuu walaalkiis ku xariiriyo, qof miskiina baahidiisa inuu daboolo, allah inuu ugu dhowaado, waxyaalahaas oo dhan baa ka qiimo badan. marka hanti in la helaahi ma ahan hadafka ugu sarreeya ee qofku ugu dadaalo aslanba, caqli ahaan baysan u ahayn, sharci ahaanna uma aha. mabaadi'daas oo dhan iyo mabda'a u dambeeyo sheekhu uu tilmaamayo aliqtisaad ah, qofku in si dhexdhexaada uu maamulo hantida allah uu siiyey oo israafna uusan ku samaynin, tadyiiq iyo taqtiirna uusan ku samaynin, sida aayadda allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama. rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay ina hada almaala khadiratun xulwa faman asaabahu bixaqihi buurika fiihi waruba mutakhawidin fima shaa'at nafsuhu min maali illah laysa lahu yowma alqiyaamati ila annaar. dadka qaar waxaa laga yaabaa inay jeclaystaan hanti yacni siduu doono uu ka yeelo inuu yeesho, laakiin rasuulku wuxuu leeyahay hantida maalku waa doog cagaaran oo macaan oo naftu ay jeceshahay. qofka marka hore uu soo shaqaynayo uu soo kasbayana waxaa la rabaa sidii saxda ahayd inuu ku soo kasbo, markaas baa loo barakaynaya. kabacdiina ma aha sida naftiisu ay jeceshahay uu isleeyahay waad ku raaxaysanaysaa inuu u maamulo, waxaa la doonayaa inuu ku ilaaliyo sharciga iyo allah sida uu ka rabay. badanaa qof maalkii allah uu siiyey u dhex dabaalanaya sida naftiisu ay jeceshahay, haddana maalinka qiyaamaha naar maahana wax kale aan lahayn. ruba mutakhawidin fima shaa'at nafsuhu min maali illah laysa lahu yowma alqiyaamati ila annaar. marka intaasoo dhani waxay ka mid tahay mabaadi'da diinka islaamku uu qariray ee keenaysa qofku si wanaagsan inuu maalka u maamulo, iyo taa ka horba in aaminaadda iyo fiirada uu fiirinaya maalka ay noqoto mid saxan. wa amarahum allah wuxuu amray dadkii maca daalika intaa la jirkeeda an yakuuna talabuhum lilghinaa, raadinta ay raadinayaan qaninimadu inay noqoto, wadunya iyo adduunyada ay raadinayaan طلبا شريفا نزيها raadin sharaf leh oo xumaan ka maran nuqsaan aan lahayn. falaa yatalawathuuna iskuma wasaqeeyaan bilmakaasib alkhabiisa shaqooyinka xun allatii hiya maa bayna riban aw qimaarin aw qararin aw qishin aw khidaac, taasoo ah wax u dhexeeya ama ribo ama qamaar ama khayaano ama qish ama dhagrid iyo dadkii in la siro oo xoolihii laga dhaco la khiyaano. bal yataqayaduuna waxay ku xirmaan dadka muslimiinta ah biquyuudi sharci alcaadila, xarkaha iyo qaanuunada sharciga ee cadaaladda leh fii mucaamalaatihim, mucaamalaadka ay samaynayaan bay ku xirmaan, kamaa yataqayaduu bidalika fii cibaadaatihim, sida quyuudda iyo axkaamta sharciga ay ugu xirmeen cibaadaadkooda. marka arrintaa waa arrin muhiima, waana midii aan tilmaanay rasuulku sala allahu calayh wasalam inuu yidhi fattaquu llaha waajminuu fi alab, allah ka cabsado dalbidda iyo raadinta adduunyada aada raadinaysaan qurxiya. dad badan waxaa laga yaabaa hadda in ay yidhaahdaan shaqa abuur ama saboolka in laga baxo oo adduunyo la kasbo ayaa la raadinaya, haddana ay la gasho in sidaa sheekhu uu sheegay ay galaan almakaasib alkhabiisa, shaqooyin foolxun oo diin ahaan u foolxun, akhlaaq ahaan u foolxun, caqli ahaan u foolxun, dhinacay ku fiican yihiin aysan jirin.
marar badan qofku hanti raadi iyo faa'iido hel iyo horumar adduunyada ka gaar oo keli ah isagoo fiirinayo inuusan u aabayeelin sharciga axkaamtiisa, inuusan u aabayeelin dadka diinkooda inuu fasaadiyo, dadka akhlaaqdoodii inuu fasaadiyo, dadka hantidoodii iyo adduunyadoodii inuu fasaadiyo, inuusan u aabayeelin. bal laga yaabo naftiisa inay halaagsanto xataa inuusan u aabayeelin. laga yaabo qofka isagoo quutulyoomkii heli kara oo khayru risqi arrintii nabigu sal allahu calayh wasalam uu ku tilmaamay ee kafaafka ahayd heli kara inuu tahriib galo oo badda uu maaragtay galo ama saxaraha iyo dhulka bahgooyada uu galo. waxa uu raadinayaana ay tahay hanti adduunyo iyo horumar adduunyo inuu gaaro, naftiisiina sida ay ku halaagsanto, oo marka uu gelayana weliba uu ogyahay arrintaas inay tahay mid lagu halaagsamo oo dadkii isaga uga horreeyey aan ku cibro qaadanin. haddana fi nihaaya meesha uu rabo inuu gaaro inay tahay oo uu tiigsanayo adduunka horumaray iyo dadka adduunyada horumarka ka gaaray meesha ay gaareen baan doonaya inaan gaaro. arrintaana waan soo marnay. mabaadi'da islaamkana ka mid maahan aslanba qofku adduunyada marka uu qiimaynayo inuu fiiriyo dadka adduunye ahaan ka sarreeya. rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay unduruu ilaa man huwa asfalu minkum walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum fahuwa ajdaru an laa tasdaruu nicmat allah. waxaad fiirisaan adduunyada iyo maalka dadka idinka hooseeya ee ha fiirinina dadka idinka sarreeya. taas ayaa u dhow inaadnaan xaqirin nicmada allah, inaadnaan xaqirin nicmada allah. qofka xadiidkii nabiga sal allahu alay wasalam ee aan soo marnay inuu waabariisto isagoo caafimaad qaba oo nabad qaba oo quutulyoomkii haysta ayaa dhici karta. haddana uu isleeyahay adduunka adiga ayaa ugu liita, nolol cariiri ayaad ku jirtaa, faqri iyo saboolnimo ayaad ku jirtaa, dhibaato ayaad ku sugan tahay, waa inaad ka baxdo inuu isleeyahay. taa marka nicmadii allah qofku wuu xaqiray. nicmadii allah ee nabigu sal allahu calayh wasalam uu yidhi adduunyadii oo dhan iyadoo la siiyey ayay la mid tahay, qofkaasi wuu xaqiray. marka koowaadba cid adiga adduunye ahaan kaa sarraysa inaad u hanqaltaagto oo aad tiigsato sharcigu ma ogola. weliba qofkaasi haddii uu yahay qof diin islaam aan ku dhaqmaynin ama diin islaamba aan haysan ee qaaruun oo kale ah, sharcigu markaa aad buu u dhaleecaynaya taasoo kale. xalana waxaan soo marnay qoladii markii fircoon fakharaja calaa qowmihi fii ziinatih, quruxdiisii iyo adduunyadii iyo daldalaalkii iyo dadkii uu lahaa iyo awooddii marka uu soo bandhigay ayaa qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya, kuwii doonayay nolosha adduunyo ee fekerkoodu intaa uu ahaa baa waxay yidhaahdeen yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun innahu laduu xadin cadiim. haddii aan heli lahayn qaaruun waxaa la siiye oo kale, ninkaasi nasiib weyn buu leeyahay. dad badan baa hadda marka waxay ka joogtaa gaalada maraykanka iyo yurub iyo nasiib weyn bay leeyihiin, noloshoodoo kale haddii aan heli lahayn waa guulayso lahay. taasna sax ma ah. waxay taas inaad tamanisaa waad ku dambaabaysaa. rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi dadku waa afar adduunyada marka la joogo. qof allah subxaanahu wa tacaala cilmi iyo maal uu siiyey oo cilmigana xuduuddii sharciga ahayd ku fahamsan, maalkana ku bixiya maaragtay jihaadkii iyo masaariiftii sharciga ahayd. qofkaasi waa manaasisha meesha ugu sarraysa, darajooyinka meesha ugu sarraysa ayuu ku sifaysan yahay. iyo qof jeclaanaya kaasoo kale inuu noqdo. cilmigii ayuu leeyahay laakiin hantidii ma haysto. wuxuu leeyahay hebel oo kale haddii aan noqon lahaa sidaas uu mashaariicda khayrka wax ugu bixinayo, agoonta iyo masaakiinta uu u kaalmaynayo, hantida guud maaragta uu xallinayo ayaa u xallin lahaa. isaguna kii hore ayuu la ajarya, niyadiisa ayuu ajar ku helay. midna waa mid aqoon wanaagsanna aan helin, hantina aan helin, laakiin wuxuu tamaninayaa midka afaraad oo ah mid aqoon aan helin laakiin hanti helay. aqoontii sharciga ahayd iyo fahamkii sharciga ahayd toosnaa ma haysto, hanti laakiin ayuu haystaa. uu iska maamulanaya, uu ku baashaalaya, wuxuu rabo ayuu ku samaynaya, xalaal iyo xaaraan u fiirin maayo. kaas marka waa mid liita. waxaase ka sii liita midka tamaninaya kaasoo kale darajadiisa inuu gaaro. marka akhbathu lmanaasil cinda allah in qofku uu noqdo waa inuu iska ilaaliyo oo uu tamaniyo axad hanti lagu imtixaanay laakiin xumaan uga shaqaynaya darajadiisoo kale inuu helo. marka waxaa la doonayaa dadka muslimiinta ah
ama qaadanaya tawjiihaas islaamka raadinta ay raadinayaan adduunyada iyo hodantinimadu inay noqoto mid sharaf iyo nasaaho ku dhisan ee shaqo xun oo ama qiyaamo ama khimaar ama wax allah lagu caasinayo ay ku jiraan aysan ku raadin ee ay mar walba ku xirmaan oo ay ilaaliyaan axkaamta sharciga ah wa amarahum allah wuxuu amray dadka an yanduruu inay fiiriyaan ila alfuqaraa'i dadka baahan nadara alraxmati waalixsaan fiiran naxariis iyo ixsaan inay ku fiiriyaan dadka baahan laa nadara alqaswati waalghilda maaha inay ku fiiriyaan qalbi adayg iyo kakanaasho fiiradeed waalaharati iyo istibdaad yacni keligii inuu wax leeyahay oo kale kacnamaa keligaa adduunyada in lagu siiye oo kale in lagaaga roonaaday qofkaasoo lagaaga fiicnaaday waalbatari waalashar waalkibr iyo qofku inuu isu bagaabago oo uu kibro sidaas inaad u fiiriso qofka faqiirka haddii adiga ilaahay hanti ku siiyey labadiinuba imtixaan baad ku jirtaan marka waxaa adiga lagugu imtixaanay oo imtixaankaaga ka mid ah qaabka isaga aad ula mucaamilayso qaabka aad ula dhaqmayso haddii aad sidaa sheekhu uu sheegay aad u fiiriso qaswa iyo khilda iyo kibir imtixaanka waad ku dhacday laakiin sida saxdaa waa inaad u fiiriso raxmad iyo ixsaan sida isaga marka xaggiisa laga hadlayaba sheekhu uu tilmaami doono oo la rabo inuu u fiiriyo inuu ka sabro oo uu ka indhalaabo oo uusan u hanqaltaagin hantida allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyay faama alyatiima falaa taqhar wa ama asaa'ila falaa tanhar qofka agoonka ah wax ha dhibaataynin qofka sidoo kale miskiinka ay wax weydiisanaya isagana ha dhibaataynoo ha canaanan midkaana ha maquuninoo awood ha u sheegan midkaana ha dhibaatayn oo ha canaanan labaduba sharaf bay leeyihiin adiga sharaf bay kaa mudan yihiin inaad ihaanaysato ma aha bal waxaa lagaa doonayaa adigu inaad wanaag u geysato dadka kalena aad kula dardaaranto oo aad ku booriso wanaag inay u sameeyaan haddii taa aadan la imaaninna waxaad soo gelaysaa qoladii allah uu ku dhaleeceeyey walaa yaxudu calaa طacaami اlmiskiin maalinka aakhiro dadka beeniye tilmaamahooda waxaa ka mid ah miskiinka masaakiinta in la quudiyo inaysan isku boorin walaa taxaaduuna calaa طacaami اlmiskiin rasuulku sal allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay in aradta an yaliina qalbuka faacim اlmiskiin wamsax ra'sa اlyatiim haddii aad doonayso qalbigaagu inuu jilco qofka miskiinkaa quudi agoonkana madaxiisa masax haddaad doonayso qalbigaagu inuu jilco waxaa kaloo ka sugan nabiga sal allahu calayh wasalam inuu yidhi ana wakaafilu اlyatiimi ka haatayni fi ljanna aniga iyo qofka agoon kafaalo qaada labadaa farood oo kale ayaan jannada ku dhahay yacni darajo isu dhow ayaan ka tegaynaa jannada الsaaci calى اlmar'a wالsaaci calى اlarmalati wاlmiskiini kalmujaahidi fii sabiili اllah qofka u dadaalaya oo baahi tiraya gabadha aan zawjka lahayn ee dhibaataysan iyo qofka miskiinka ah wuxuu la mid yahay mujaahid fii sabiili اllah waxaa kaloo ka sugan rasuulka sal allahu calayh wasalam tilmaantiisa markii la tilmaamayay in la yidhi kaana sala allahu calayh wasalam laa ya'nafu walaa yastakbiru an yamshiya maca alarmalati waalmiskiini waalcabdi xataa yaqdiya xaajatah kama santaagi jirin iskalama weynaa jirin inuu la socdo gabadha aan zawjka lahayn iyo qofka miskiinka ah kan addoonka ah ilaa baahidiisa uu maaragtay la xalliyo iskalama weynaa jirin marka sida ayaa la doonaya qofku inuusan iskala weynaan qofka miskiinka ah ama isaga adduunyada marka la fiiriyo ka dabaqa hooseeya qofkaa laga yaabo muuqaalkiisa markaad fiiriso inuu adiga muuqaalkaaga ka duwan yahay oo ka hooseeyo oo hantidiisu hantidaada ay ka yar tahay dharka uu ku labisan yahay iyo guriga uu degan yahay iyo waxa uu haysto adiga kuwaaga ay ka liitaan waxaa laga yaabaa alla agtii inuu kaa darajo sarreeyo inuu yahay addoon awliyada allah subxaanahu wa tacaala ka mid ah oo haddii allahu sidaa yeel u yidhaahdo ilaahay horay uu ka aqbalayo ducadiis ayaa dhici karta maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala dadka suwartooda iyo madaahirtooda macno weyn uguma fadhiya
إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم suurooyinkiina iyo xoolihiina hantidiina ilaahay ma fiirinayo taas ma keenayso darajo aakhiro ee allah wuxuu fiirinayaa quluubtiina iyo acmaashiina ولهذه الإرشادات الحكيمة تلوين كان حكمة له درتد تكون الثروة الدينية أيا وحي نقونيسا هنتدا دينك لو نسبيي أو يعني تلدي دينك كسعطة في غاية الشرف وكمال الاعتبار شرف ماشا غدا بيسا إيو اعتبار كامل أهاشيه المتكن صفيسا ويكون الغنى على هذا الوجه وصفا محمودا قنين مدونا قاب كان وحي نقونيسا تلمان لأمانه لما هديه ونعت كمال ورفعة وحلو وحي نقونيسا صفو كامل نمو يسرين لأن الشرع هذبه وصفاه محايل قنين مداس شرعك أيا تهذيبية أو صفية أو وحي حمانها يعلن كالنزهي فحث على التباعد عن رذائله شرعك أيا كبوري إلا قفق هذا حمانه سب ورغب في اكتساب فضائله قد كان جعليسيي وناقيدي سإلا شقيسته انت أصول المركة وحي أهيد أما بدن كيدوها إرشادات يتلوين قوة جهندت كهانتيد هايست وأما ما صنعه الدين الإسلامي مع الفقراء أما وحا سمي دين كإسلام ضدك هانتيد آن هيسان فقراء أو سمي أما وكلا دردارمي وحي تهي وكمد فقد أمرهم وحو أمر فقراء وكل من لم يدرك محبوباته النفسية يعد والباء آن قارين وحياله شخصي أهان وجعلا وحو أمري وكل تلي أن يصبروا إن صبران ويرضوا بقضائه وتدبيره الله قدر كيسا إمام الكيسا يكون على النقطة وأن يعترفوا إن اعترافان وإقران أن الله حكيم له في ذلك حكم الله يهي من حكمله وأركاس حكموين كله وفيه مصالح متنوعة سدا حالة إيغا كسفيي أما وكيا لينا مصلحوين كلا دوان إني كجرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وحا لغيابا أو دعضا إنا نعضا شيء يسقوا إذن خير بدن وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وحا لغيابا أو دعضا إنا جعلاتان شيء يسقوا إذن شر إذن والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله أيانا قرانيا سيدا خيرك وياي مصلحة أي تهي أذنكم لما قرانيسان فنظرهم هذا في ردود السيدان يذهب الحزن وحو تكسينيا وضدك كقاضيا مرقدة الذي يقع في القلوب قلبية دعاء مرقدة قلوب تقشى فيحدث العجز والكسل كان تقفك عاجز inuu ku yimaado iyo awood daro oo qofka haddii nolosha uu ku sugan yahay ee faqriga ah uusan ku raali noqon oo qadarka allah uusan ku qancin inta uu haystana uu la barbar dhigo dadka hantiilayaasha ah ee adduunka ilaahay maalka uu ku imtixaanay qalbigiisii marka murugo ayaa gelaysa qalbi jab ayaa ku dhacaya xataa inuu shaqaysto ayaa laga yaabaa marka inuu ka caajizo oo marka dambe uu noqdo inuu tuugsado ama inuu maanta oo dhan murug ku noolaado adduunkii farxadiisii iyo qalbi deganaashihii uu waayo taas marka waxaa xal u noqonaysa marka koowaadba inuu ku qanco sidaani qadarkii allah inay tahay maamulkii allah inay tahay sidaani inay isaga u fiican tahay imtixaanka marka la fiiriyo intaa inuu ku qancana in la doonayo uma amarahum kadib allah wuxuu amray dadka fuqarada ألا ينظروا في دفع فقرهم وحاجاتهم إلى المخلوقين إن يصنفير فقر وذا يباهيه ذا كهرتجيان ذاتك مخلوق إن يصنفير باهي هذا سلا ضد بول لهاي المخلوق هو هستي ولا يسألوهم ذاتك إن يصنوحوا ويديسا إلا حيث لا مندوحة إلا مركي عن يجرين ما لو ظل يحظه عن السؤال وحويديسك عند الضرورة إلى ذلك مركي لا ضرورة قليطها وأن يطلبوا إن الضربان دفع فقرهم فقر جودة إن لقى عليو ولا قاضوا
min allahi waxdahu alle oo keliya inay ka dalbaan laa shariika lahu cid la wadaagtaa inaanay jirin in faqriga uu ka qaado bimaa jacalahu allahna ay uga dalbayaan weliba iyagoo la imaanaya oo maaha ilaahow hanti isii kaliya inuu leeyahay qofku inta meel iska fadhiisto ee taa ay la jirto bimaa jacalahu maca maa jacalahu wixii allah uu abuuray uu sameeyey min alasbaabi addaaficati lilfaqri asbaabtii qofka ka celinaysay faqrinimada aljaalibati lilghinaa ay u keenaysay qaninimada iyo xoolo iyo hanti inuu yeesho wa hiya alacmaalu waalasbaabu almutanawica waana shaqooyinka iyo sababaha kala duwan kullu waaxidin yashtagilu bisababi aladii yunaasibu qof walbaahi wuxuu ka shaqaysanayaa sababka iyo shaqada isaga munaasibka u ah wayaliiqu bixaalihi xaaladiisana u cuutanta oo munaasibka u ah fayastafiidu bidalika arrinkaa marka wuxuu ku faa'iidayaa taxarurahu min riqi lmakhluuqiin inuu ka xuruubo addoonnimada ama addoonsiga makhluuqiinta wa tamarunahu cala alquwati waannashaad iyo inuu ku laylisamo awood iyo firfircooni wa muxaarabata alkasali waalfutuur iyo inuu la dagaalamo caajiska iyo daalka ayuu ka faa'iidaya rasuulkuna sal allahu calayh wasalam wuxuu leeyahay cizu lmu'min istiqnaa'uhu cama fii aydi innaas qofka mu'minka cizadiisa iyo sharafkiisu wuxuu ku jiraa inuu ka kaaftoomo dadka hantida ay leeyihiin oo gacmahooda ku jirta way-as mima fii aydi innaasi tacish haniya waxaad ka quusataa oo qalbigaada aad ka goysaa dadka hantida ay haystaan qani adigoo ah ayaad noolaanaysaa nafsadaada oo qani ah ayaad noolaanaysaa marka qofku allah subxaanahu wa tacaala qalbigiisa inuu ku xiro qanaaco inuu yeesho qadarka allah inuu rumeeyo allah inuu weydiisto irsaaqada inuu u waasiciyo asbaabtii risqigana uu la yimaado qalbigiisana makhluuqa uu ka gooyo oo qalbigiisa uusan ku xirin dadka intaasoo dhan waxay xal u tahay qofku sida uu uga hortegi karo ama uu u xallin karo faqriga iyo saboolnimada wamaca daalika intaas uu jirtana laa yaqacu fii quluubihim dadka fuqarada quluubtooda ma dhex dhacayso xasadun lilaqniyaa dadkii hantida haystay xaasidnimo inay xasdaan calaa maa aataahum allahu min fadlihi wixii allah uu siiyey ee fadligiisa ah inay ku xasdaan qalbigooda ma dhacayo lama rabo sida walaa tatamanaw maa fadala allahu bihi bacdakum calaa bacdin ha tamanina ha jeclaysanina wixii ilaahay uu ku fadli yeelay qaarkiin qaarka kale oo allah uu idinku kala duway ha tamanina lirijaali nasiibun mima iktasabuu raggu nasiib bay ku leeyihin wixii ay kasbadeen oo shaqaysteen walinnisaa'i nasiibun mima iktasabna dumarkiina nasiib iyo qayb bay ku leeyihiin waxa ay shaqaysteen yacni qofku waxa uu shaqaysto ayuu allah subxaanahu wa tacaala maalinka qiyaamaha kula xisaabtamaya oo hawaab ama ciqaab u noqonaysa sidoo kale adduunyada darajaadka lagu kala duwan yahana qofku ma ahan inuu yidhahdo qofkaasba hanti baa la siiyey qani baa laga dhigay aniga maxaa la iga dhigi waayey qofkaasi waa iga fiican iyo xaasidnimo qalbigeeda u gasho oo u xasdo taas marka lama doonayo sida aan loo doonayn qofka qaniga qalbigiisa in xaqiraad ay u gasho midka miskiinka ee faqiirka wa amarahum allah wuxuu amray dadka fuqarada ah an yansaxuu fii acmaalihim in nasiixo iyo khayr miir ay kula yimaadaan acmaashooda wa mucaamalaatihim iyo mucaamalaadkooda wa sinaacaatihim iyo farsamooyinkooda sida aan soo marnay dadku way isu baahan yihiin midka hantida haystaa wuxuu u baahan yahay cid u shaqaysa wuxuu u baahan yahay mid xirfad leh mid aqoon leh mid xoog leh marka kuwaan iyaguna intaa haysta ee hantidu ay ka maqan tahay marka ay shaqada qabanayaan ama ay la mucaamilayaan kuwa hantida leh ama iyaga dhexdoodaba ay isla mucaamilayaan ama farsamadii ay samaynayaan iyo xirfaddii waxaa la rabaa nasiixo inay la yimaadaan inay khayr miiraan oo aysan noqonin xaasidnimo iyo maaragtay xooggoodii inay bakhiilaan mid ku dhisan sida nasiixadu ay tahay xalaashu ay tahay inay uga soo baxaan sidoo kale kuwa hantida haystana iyaguna inay nasiixo la yimaadaano dadka u shaqeeya xaqoodii oo buuxa oo kaamil ah in ay siiyaan oo aysan ka khayaanin oo aysan ka dulmin oo aysan ka yaraynin labadaba markaa dardaarankaas iyo fariintaas ayuu sharcigu siiyey sidaa ayaa marka noloshoodu ku wanaagsanaanaysaa
laakiin midkii hantida lahaana haddii uu doonayo isagoo hanti aan bixin in loo shaqeeyo oo dadkii shaqaalaha ahaa ama masaakiinta ahaa inuu ka faa'iidaysto kuwii xoogga ama xirfadda lahaa iyagoo kuwii hantida lahaa markay u shaqaynayaan inay khayaanaan oo shaqadii ay kala dhimaan oo sidii lagu ballamo aysan ka soo bixin oo ay rabaan si uun inay hantidaa ku qaataan labadaa midna noloshoodu ma dhammaystirmayso adduun ahaan iyo aakhiro ahaan midna wa anlaa yatacajaluu risqa inaysan degdegsan risqiga ay heli lahaayeen oo ilaahay uu qoray bilinqimaasi fi lmakaasib addaniya inay dhex galaan oo ay tiimbadaan shaqooyin liita allatii tudhibu addiina waaddunya midaasoo tagsiinayso baabi'inaysa diin iyo adduunyaba oo risqiga allah uu kuu qoray mar walba waad heli doontaa intii ilaahay uu kuu qoray ku seegi mayso taas marka raadinta aad raadinayso ha noqoto mid wanaagsan sidaan soo marnay wa amarahum dadka fuqarada ah wuxuu allah amray biamrayni laba arrimood yucinaanihim oo u kaalmaynaya calaa mashaqati alfaqri mashaqada faqriga uga kaalmaynaysa labadaasi waxay yihiin aliqtisaadu fii tadbiiri almacaash dhexdhexaad inay u maamulaan maamulka macaashka iyo nolosha ay haystaan maamulkeeda dhexdhexaad iyo si wasat ah inay ula yimaadaan waaliqtinaacu birisqi illaah iyo inay ku qancaan allah risqigiisa labadaasi marka waxay ka saacidaysaa mashaqadii iyo culayskii faqrigu inuu ka yaraado inta allah uu siiyo qofku inuu ku qanco intaasna si wanaagsan inuu u maamusho laakiin haddii qofku uu is yidhaahdo adduunka midka ugu qanisan nolosha uu nool yaho kale waa inaad noolaato inta uu helo oo kale waa inaad hesho qofkaasi nolol wanaagsan ma noolaan karo qanaacana ma yeelan karo qofku waxaa la doonayaa noloshiisu in ay ku beesgaraysan tahay waxa uu haysto iyo baahida uu baahan yahay inta aad haysato haddii bishii aad hesho $50 ama $100 ama wax ka yar ama ka badan inaad adigu isla ekayso ayaa la doonaya oo noloshaada intii kaafi ku noqon karta aad u isticmaasho laakiin haddii intii yarada aad haysatay aad la aado ninkii $1,000 iyo ka badan helaya noloshii isagu uu maaraynayay taadii kugu filnaan mayso haddaysan kugu filnaan hanqaltaag iyo qanaaco la-aan ka bixi mayso waxaana muhiim ah oo horena sheekhu usoo tilmaamay middaan laftirkeedana ku jirta qofku hantida uu maamulaya in uu u maamulo si caqli uu ku caqli ku dhisan oo ku dhisan qofkan inuu fahmayo hantidan sidii loogu talagalay inuu uga faa'iidaysto laakiin aysan ku dhisnayn dadkuba sidaasay yeelaan ama hebel baa saas yeelay ama adduunka qolo ayaa sidaa u maamusha inaysan ku dhisnayn adduunka dadku hantida ay haystaan waxay mar walba ku dhisi jireen inta ay hanti ka haystaan iyo baahidooda laakiin hadda waxaa badan qofku baahidiisa inuusan ku dhisin ee uu ku dhiso wax la yidhaha mowdo ama in la yidhaahdo waa fashion iyo model cusub kanaa dambeeyey kana hadda dadku wataan sidaanay hadda dadku u dhaqmaan adduunka sidaasaa hadda la sameeya aynay ku dhisan tahay kii qaniga ahay kii faqiirka ahana saamayn bay ku yeelatay idinkuba u fiirsada qofka haddii dhar uu soo gadanayo dumarkuba ha u badnaadeen wuxuu ku soo gadanayaa noocaana u dambeeyey ee u soo gadan maayo noocaana faa'iido badan ama noocaana noloshaada munaasib u ah ama noocaana qurux badan ama kana xoog badan ma ah ee waxay ku dhisan tahay kana u dambeeyey hadduu saacad soo gadanayo hadduu taleefon soo gadanayo haddii xataa cunto uu soo gadanayo cuntadii laftirkeeda waxay noqotay sidaan ayaa maaragtay hadda dadka reer magaalka dadka wanaagsan dadka horumaray sidaana yeela taa marka waxay keenaysaa qofka intii uu haystay inuusan ka faa'iidaysan bixintaa uu wax bixinayana inay noqoto miduu ku khasaaro maxaa yeelay faa'iido asaas ahaan uu raadinayo kuma uusan bixin ee wuxuu ku bixiyey miisaan qaldan oo sidaasaa la yeelaa marka qofkii waxaa ka saacidaysa inta yara uu haysto inuu nolol macaan oo wanaagsan ku helo inuu marka hore ku qanco risqiga allah marka labaadna si wanaagsan ugu maamulo farisqu alqaliilu risqiga yar maca aliqtisaadi alxakiim dhexdhexaysi xikmad leh marka uu la jiro yakuunu kaiiran wax badan buu noqonaya in yar qofka markuu haysto laakiin si dhexdhexaada oo xikmad leh ugu maamusho way u badanaysaa wax uu cuno reerkiisii uu siiyo weliba uu sadaqaysto ayaa usoo haray
والقناعة كنز لا ينفد قناعتنا وكيد أن مان وغنى بلا مال وقننمو بلا مال قناعة قف إلهي وصيه وكيد أن كدماني فكم من فقير وفق للاقتصاد والقناعة بدنا قف فقير والله وافجية دحيسك ماملك وناكسا هي قناعة لا يضبط الأغنياء المترفين وأنشع ليسنين ضدك هانتذا له اللون معمي حالة دود ولا يتبرم بقلة ما عنده وأن نعمي سنين وأن لبسنين يران توحى أوها يستو من الرزق اليسير الرزق غير وبديه قفل وافجي sidoo kale midaan la waafajina wuu jiraa famata ihtadaa ahlu lfaqri marka ay ku hanuunaan oo ay ku toosaan dadka faqriga ku sifaysan biirshaadaati ddiin talooyinka diinka min asabri ee ah inay sabraan watacalluqi billaah allah in lagu xirmo wataxaruri min riqi lmakhluuqiin in laga xoroobo addoonnimada makhluuqiinta waljiddi walijtihaadi fi alacmaali ashariifati annaafica in lagu dadaalo laga shaqeeyo shaqooyinka sharafta leh ee waxtarka leh waliqtinaaci bifadli illaah fadliga allah in lagu qanco intaas marka ay ku hanuunaan haanat calayhim wad'atu lfaqri waxaa u fududaanaysa qaniinida iyo dhibaatada faqriga wacanaa'u iyo mashaqadiisa wamaca daalika taa oo jirtana fahum laa yazaaluuna ka zuuli maayaan yascawna fii taxsiili lghinaa inay u dadaalayaan qaniinimadii keenideedii ويرجون ربهم ربهم أي رجينيان وينتظرون وعده الله بلنقات كيسين أي سبيان ويتقون الله الله عذاب كيسي عرديسا أي اسكا إلالينيان فإنهم حيال أرنك وحويهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا قفك الله كعب سدي عرديسا اسكا إلالية إلهي مال ونب والبحو أي أسمينيا ويرزقه من حيث لا يحتسب وإرزاقيا مال أوسن كفلنين أي إلهي كإرزاقيا ومن يتوكل على الله فهو حسبه قفك الله تلصارت الله ما كفلا مركيسو قفك يا أنتي هيسن الله تلصارنيا وقدرك الله رميسن أيها هذا الله إيمانا يا سببك وأكد داليا إنه رزقك راديو لبضا مركو كل منيا فهذه التعاليم الدينية تعاليم تان أما تلوين كان دينك والإرشادات من الله ورسوله إيا هجدهان إيا هجد إرشادك الله يا رسولك حقي كتمد لأهل الغنى والفقر كوا هنتظها يستاي كوا فقر يكوزي فيصل لبضبا لسي تجلب لهم الخيرات وحيوك نساء خيرات وتمنعهم من الشرور والمضرات وحين كعلي نساء وحي شرعها ينباتوين وتنتج لهم أجمل الثمرات وحين أكينيسا فايدوين كوا قرحان العاجلة والآجلة فايدوين سودك دقايا كوا ضنب انتبا فهذا الحل الوحيد كان عياء حلك كلئة من الرب المجيد ربك شرفت لحقي كيمد لمشكلة الغنى والفقر مشكلة قنن مدى يصوى لمدى حلوة وما سوى ذلك انت وحي كسهرنا فعناء وشقاء ودباط إيو النصيب در وضرر وهلاك ودب إيو هلاك والله الموفق هل كان مرك انت كدن بيس الشيخ وحقالي دونا مسألة الصحة والمرض هل كان يكون استاغنا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد